taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya guutooda waa Yuusuf Raage oo ku jira safar uu ku marayo xarumaha ciidamada xoogga dalka ee deegaanada Galmudug ayaa maanta dhagax dhigay qaybo ka mid ah dhismaha xarunta taliska guud ee qaybta 12aad oo fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareeb. taliyaha qaybta 12aad Jenaraal Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga guriyaha taliyaha qaybta iyo kan taliya xigeenka oo ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan taliska qaybta. hirgelinta qaybaha cusub ee ku biiraya xarumaha shaqeynaya ee qaybta 12aad ayaa ahmiyad u leh taliska, waxaana dib u dhiska qaybahan muhiimka ah ee xarunta qaybta 12aad ka mahad celiyay taliyaha qaybta Jenaraal Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje. halkan aan taagannahay waa gurigii loogu talagalay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliya xigeenka ama maamulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. guriga naga dambeeya muddo badan bay xoogaa burbur ka muuqday. waxaan halkan maanta noo ah sharaf iyo karaamo in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya nagu soo booqday. aan rabnaa inaan ka codsano in loo dhiso oo loo dayactiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. cid walba oo u shaqeyn jirtay ugu shaqeeya xafiiskan kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee halkan ka shaqeyn doontaan ay ku shaqeyso hadii la idmo. gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa ballan qaaday ka maamul ahaan inay gacan ku siin doonaan ciidamada xoogga dalka dhismaha xaruntan, waxaana uu digniin u diray dadka isku dayaya inay degaan xarumaha ciidamada xoogga. sidoo kale waxaan dadweynaha u soo jeedinaa xoryaha ciidanka in la nabadgeliyo. dhulka horaan war uga soo jeedinay dhul aan maamulka warqabin ma la dhisan karo mana ogolaanayno, laakiin gaar ahaan meelaha u asteynsan xoryaha ciidamada in laga leexdo la nabadgeliyo. qofkii aan ciidanka ahayn ama hay'adaha ku lug leh oo qaybtaas iyagu iskale aan ahayn oo hadda ka bacdi aan ku qabanno iyagoo maaragtay xoryaha ciidanka ama meesha deegaanada u ah ciidanka guryaha noqoto wax walba ha noqoto iyadoo maaragtay hawl ka haysata waxa la marin doona sharciga hadii la yiraahdo mana la ogolaa doono. marka waa ku amaanaya taliyaha xoogga inuu maaragtay meeshan maanta dhagax dhigaan oo soo qaybta koobaad ka yahay dib u howlgelinta guryaha oo hogaamin doona hadii la yiraahdo. annaguna waa ku garab siinaynaa hay'ad kasta waxa soo jeedinaynaa inay qaybta iyadu ay lahayd ay dayac u tirato. dadkana dhammaan waxa soo jeedinaynaa in ay nabadgeliyaan xeryaha ciidamada gaar ahaan kuwa xoogga. taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya guutooda waa Yuusuf Raage oo ka hadlay ahmiyadda xeryaha ciidamada xoogga dalka ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb ay leeyihiin ayaa ballan qaaday in dhismaha xarumahan cusub uu bilow u noqonayo in dib loo wada dhiso guud ahaanba xeryaha kale. waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halkaan aan ku dhagax dhigno gurigii taliyaha qaybta iyo abaandulihii qaybta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa oo runtii oo aad u saameeyay burburkii dalka soo maray. indhaheennuna ay hayaan runtii waxyaabaha ka muuqda horena ay runtii waxyaabo yaryar oo dayactira oo loogu sameeyay sida indhaheennuna hayaan. aad iyo aad ay sharaf weyn noogu tahay inaan maanta dhagax dhigno. ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa waqti kooban in ay muxuu ahaa ii sheegay dib ay u howlgeli doonto noqon doonto xarumaha runtii muhiimka u ah saraakiisha ama taliska qaybta muxuu ahaa ii sheegay 12aad iyo taliyaheedaba u noqon doonta hoygii iyo xarumihii ay muxuu ahaa ii sheegay ka shaqo gali lahaayeen. waxaan kaloo rabaa inta uga gudbo inaan uga faa'iideysto fursadan gudoomiyahan runtii aan ku amaano degmadan aan joogno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad waxay ku leeyahay xarumo aad u badan oo kala duwan oo runtii aan halkan hadda aan kaana magaceeda ku soo koobi karin. waxaan rabaa marka shacbiga Soomaaliyeed ee halkan degan si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fursad uu ugu helo dhulka uu lahaa iyo xarumihii uu lahaa inuu ku shaqeysto si uu ugu waajibaadkiisa shaqo uguna hagaagaan meelihii lagu shaqeey lahay in ay nagu gacan siiyaan meelaha banaana in aan muxuu ahaa ii sheegay hadda wixii ka dambeeya aan la gelin meelaha hadda la degan yahana inta degan inay ka sii tabaabushestaan maadaama anaguna aan ugu jirno diyaar garow iyo sidii aan dib ugu shaqeyn lahayn oo ugu howlgelin lahayn xarumaheen.
xarunta taliska qaybta 12aad ee magaalada Dhuusamareeb oo horay dayactir iyo dibdhis loogu sameeyay ayaa kadib dhismaha guryahan cusub ee ku biiraya taliska dib u soo ceshan doonta xeryaha kale ee ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay iyo kuwa ku jira gacmaha aan ahayn kuwa xoogga dalka waxaana dhagax dhigan kadib taliyaha ciidamada xoogga dalka uu kormeeray qaar ka mid ah xeryaha kale sida xerada gaadiidka ciidanka ee ku taal bartamaha magaalada Dhuusamareeb